salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waxaan filayaa dhammaantiin inaad walaladan tihiin. waa habeen kaloo jimco ah. salliga nabiga iyo suuratulkaafi iyay ku dhaafeen. ku soo dhawaada muuqaal cusub. muuqaalkeenna maanta waxaan ku eegi doonaa 5 shay uu nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yidhi yaa iga qaadanayo, oo hadduu iga qaadana laba midkood marinayo, imaa inuu ku camal falo inuu baro ruux ku camal fala. xadiidka imaam atirmidi ayaa soo saaray. abu hurayra radia allahu canhuna wuu soo wariyey. abu hurayra wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi, man ya'khudu cannii kalimaat fayacmalu bihinna ow yucallimu man yacmalu bihinna, yaa iga qaadanayo kelimado oo hadduu iga qaadana ku camal falayo ama iga gaarsiinayo ruux ku camal fala. abu hurayra radia allahu canhu wuxuu leeyahay, markaasaa waxaan idhi aniga yaa rasuul allah. abu hurayra radia allahu canhu wuxuu leeyahay, nabiga sala allahu calayhi wasalama gacantayduu qabtay uu ku tiriyey 5 shay. fa akhada biyaddii facadda 5 waqaal. gacantaydu intuu qabtay ayuu 5 ku tiriyey oo wuxuu yidhi, ittaqi lmaxaarima takun acbada annaas. xaaraanta ka fogow, waxaad noqonaysaa ruuxu ugu cibaado wanaagsane. ambiyadana waxay ahaayeen kuwa ugu dadaalka badan xagga xaaraanka cararka. fii suurati yuusuf ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramay nabillaahi yuusuf calayhi asalaatu wassalaam marka isu soo qurxisay ilaantii boqorkii oo weliba intay albaabadii soo wala xirtay ay ku tiri hayta lak. miyuu ku dhacdhacay nabillaahi yuusuf? waa may. muxuu yidhi? macaada allah. xadiid kale nabiga sala allahu calayhi wasalama uu hadlayay 7 ruux oo carshiga hoos hergeli doonta ayaa waxaa ka mid ahayd ruux ay u yeertay naag qurux badan, cid nasab ahna ka dhalatay, oo yidhi ilaahay baan ka cabsanayaa. waxaa la rabaa diinta in ay ku xakamayso. qodobka labaad, warda bimaa qasama allaahu laka takun agna annaas. nabiga sal allahu alay wasalam wuxuu leeyahay, waxaas noqotaa mid ku qanacsan wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u qeybi. wixii kugu soo hagaagay ku qanac, ha ka hanqaltaagin. ilaahay subxaanahu wa tacaala qaybintiisa kuma khasaaraysid. nabiga sala allahu calayhi wasalama xadiid kale wuxuu ku leeyahay, mu'minka xaaladdiisa kulli waa khayr. maxaa yeelay hadday shar soo gaarto wuu ku sabrayaa, khayr bay u noqonaysaa. haddaas khayr helana oo wanaag uu soo gaarana alla buu ku shukrinaya oo khayr bay u noqonaysaa. qodobka 3aad, nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay, wa axsin ilaa jaarika takun mu'mina. jiiraankaaga wanaaji oo wanaag u samey, waxaad noqonaysaa mu'min. in iimaan dhab e lagaa helay waxaa markhaati ku filan jiiraankaaga iyo adiga calaaqadeena ka dhexaysa. jiiraanna markii lagu leeyahay waa 40 guri oo 4 gees kaa xigto, waa magaalo dhan. jiiraankaaga wanaaji, waxaad noqonaysaa ruux mu'min ah. wa axibba linnaasi maa tuxibbu linafsik. qodobka 4aad, nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay, la jeclow dadka kale waxaad naftaada la jeceshahay. takun muslima, ruux muslim baabaad noqonaysaa. in lagu dhibo ma rabtid, dadka ha dhibin. in lagu dhibaatay ma rabtid, dadka ha dhibaataynin. in lagu ceebeeyo lagu caayo ma rabtid, dadka ha caynin. inta adiga rabtid dadka kalena la jeclow. taasina jacayl hadduu meesha imaadana xiqdiga iyo xasidkaa zuulaya oo tagaya. maxabba iyo kalgacayl baad iisu soo aruurayso. qodobka 5aad,
nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay walaa tukthir aldaxik fa ina kathrata aldaxiki tumiitu alqalb. qosolka ha badin, qosolka faraha badan qalbiguu dilaayahay. qosolka kaxkaxda ah oo dhuwaaqaaga laga maqlaayo meelo kale ha gelin. muunsadaa sunno ah oo nabiga sala allahu calayhi wasalama xaggiisa ka sugnaatay. laakiin qosolka faraha badan wuxuu ku ilowsiinayaa aakhiro iyo hadafkii lagu abuuray buu ku ilowsiinayaa. ruux waxaa laga rabaa in uu ahaado ruux aakhiro xasuusan saacad weliba, mowd iyo geeri ay hortiisa inay yihiin oy ka horreeyaan, qabri iyo cadaab ka horreeyo, janno iyo naar ay jirto, inuu xasuusnaado ayaa loo baahan yahay oo qalbigiisa ay ku taagnaato. hadduu ruuxu qosolka badsadana aakhirada ayaa daaf ka fuulaya. haddaan intaan idla soo gaarnay, aad baan kaaga mahad celinayaa wakhtigaaga quruxda badan ee aadna siisay. maxaa yeelay wax ruux la siiyo wakhtiga ayaa ugu qaalisan. ka faa'iidayso wakhtigaaga. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant astaqfiruka wa atuubu ilayh.